shirka dhaqaalaha Soomaaliya oo ka dhici doona 30 iyo 31 May magaalada Muqdisho khaasatan xulka weyn xalane ayaan rabaa inaan wax yar halkan ka ilaahdo shirkaasi oo daba socda kulankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh oo uga qayb galay Talyaaniga ayaa shirkaasi waxa ka dhashay in shir labada dawladood ay soo abaabuleen oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho oo shirka dhaqaalaha Soomaaliya loogu magac daray shirkaasi waxa soo abaabulay labada dawladood dawladda Soomaaliya iyo dawladda Talyaaniga waxaana horkici doona wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda UNIDA waxaana ka soo qayb gali doona ganacsatada Talyaaniga iyo ganacsatada Soomaaliya oo labada dhinac ah shirkaasi wuxuu socon doonaa 2 maalmood wuxuuna ka dhici doonaa sida hore u sheegay holkaas oo xalane waxaana leeyahay shirkaasi waa shir aad muhiim ah oo kobca dhaqaalaha dalkeena wax weyn ku soo ziyaadin doona waxayna daneynayaan ganacsatada Talyaaniga ah ee imaanaysa sektor gaar ah inkastoo ganacsatada ay kasoo wada qayb galayso laakiin beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo energy-ga iyo dhismaha ay aad u daneynayaan laakiin ganacsatada qaybta maxaan kala bankinka iyo sektorada kale oo dhan waa ay kasoo qayb gali doonaan insha Allah hadii la iraado waxaan rabaa marka inaan halkan uga baaqo ganacsatada Soomaaliyeed oo Chamber of Commerce uu ku cazumay shirkaas inay kasoo qayb galaan waxaan u sheegay in shirkaas uu yahay shir culus aadna muhiim uga ah dhaqaalaha dalkeena iyo isla falgalka ganacsiga Talyaaniga iyo Soomaaliya shirkaas wali wuxuu daba socdaa shirkii 2019 halkan Muqdisho hore uga dhacay waana ka culus yahay waana bilow waana markii labaad oo shirkaas uu noo dhaco waxaan rajaynayaa mar ka dambeysay inuu ka sii weynaado falgalkeena oo intaas ka sii badabato dawladdeena waa ku bogaadinaynaa aad u mahadsantiin ganacsatada waxaan leeyahay kasoo qaybgalkiinu waa muhiim insha Allah hadii la hado aad u mahadsantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته